الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. waxaan kelmad maanta kooban ka oranaynaa arintan ku saabsan xisbigan talada dalka haya ee uu hormuudku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo. bariyahan intii talada dalka qabsaday dawladdeenu waxay ku jirtay hanti boob ha noqoto guryaha ha noqoto xagga guryaha ha noqoto hantida kale asadka dalkan leeyahay. runtii waxaan nasiib daraa oo waxa laga xumaadaa maanta aad iyo aad uga xunnahay in imaaraadka carabta ay heshiis la soo saxiixdeen xukuumaddan hormuudku yahay Axmed Maxamed Siiraayo oo ku weheliyo waliba gudoomiyihii xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi arintaasoo baarmasan sharciga dalka. dalka haddii maalgashi la samaynayo iyo haddii cid lala heshiinayo waxa ka wakiila oo shicibka mataliya waa baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana baarlamaanka la soo marina sharci maaha. qodobka 3 dastuurka firqadiisa saddexaad wuxuu awood buuxa siinayaa golaha wakiiladu inay golaha wakiiladu awood buuxa u leeyihiin oo sharci ah in haddii lala heshiinayo dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhinaca nabadgelyada hadday tahay dhinaca maalgashiga inay awood buuxa u leeyahay baarlamaanka la soo mariyo. marka wax aan baarlamaanka la soo marin sharci maaha. waxaan cod dheer ugu sheegaynaa dowladda imaaraadka carabta in heshiiska qarsoodiga ee gudoomiyaha kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo saxeen inuu sina sharci u noqonin inayna aqbalaynin shacabka reer Soomaaliland in dekada berbera ay tahay asadkii dalka in dekada berbera wax go' lagu qaadan ay ka weyn tahay. marka imaaraadka carabta waxaan ugu baaqaynaa in arintaasi ayna sharci ahayn haddii ay shaqayso maalmo shaqaysana inay sii shaqaynin waayo sharci maaha wax baarlamaanka la soo marin oo maalgashina sharci noqon maayo. marka waxaan ugu digaynaa dowladda imaaraadka in heshiiskaas uu yahay heshiis qarsoodiya oo aan sina uga suuragelin jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu dhaqo shicibkuna ka dhiidhiyi doonaa haddii Ilaahay. Wassalaamu calaykum.